بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ummadda muslimiinta meel kasta joogaan baad baan idin salaamaya. Waa walaalkiin Iran miskiinka ahaa. War hadda barigii dhexe maxaa ka taagan? Iran waxay samaysay wax laga aamusi karo maaha. Iran oo Israa'iil cardaadiqaha ka dhigtay oo Israa'iil gebigeeda laf macaldiir kaga dhigto afka ciida u tartay waxaan ku haday noqoto nidaam difaacideedii haday noqoto saldhigeedii haday noqoto magaalooyinkii haday noqoto guryihii bilixda waaweynaa ham Xayfa iyo Tel Aviv waxaan ku askaxa loo jaray. Iran oo caawa maxay samaysay? baaritaankii ay waday ee ku baaraysay basaasiinta ay Israa'iiliintu ay leeyihiin taasoo caawa la soo qabtay basaasiin kale oo laamid la baacsado gebigooda la qabto Iran maxay samaysay gebigooda marka taaladii soo ku fikirsay hadii ku dhigtay Israa'iil ay tiri ايش قياسك نوعان نقانا mareykankii bakbakda guray Netanyahu iyo oo telefoon kala dalay Donald Trump ariga soo gaaray dhintay warwaan bacay geerow baa la socmaanta ciid daqda lagu yaaba Israa'iil waxay socoto afka waxay ku gashay Iran way isbartay Iran oo laga yaabay yahay ummadihii muslimiinta hor dhabay wada taageersan yihiin Iran way leeyihiin Iran variyaalaha waxay soo bandhigaysaa kulbu ka dambeeyay roob bay kaga dhigtay Israa'iil gantaal iyo nidaam difaaciyada Israa'iil oo qaylinaya shacabkii oo dhulka hoostiisa wada galay oo waxaan ku leeyahay nabixi ay ka dhacday dhageefar ayaa ka dhacday Iran bay isku doonatay markaasay weliba dhexdeedina ka dhex samaysatay muxuu ahaydee tawaawis jaajuusintii way wada qabatay qaar badan oo diyaarinayay caawa baabuur soo dhigtay baday daroon ay ku jiraan oo la doonayay meel kale laga adeegto laakiin Iran ba ka adeegtay shacabkeedii baa soo xilqaamay laamiyadooda taagan baabuur kasta oo soo maray wadada baaraya ilaahay ha guuleeyay bal Iran meel kasta dunida daafida ka joogta saaxiibayaal waa halkeenii subscribe ku qabta like ku qabta fadlan barnaamijka la fogeeyo assalaamu